nabadoon cumar cabdulaahi ibraahim waxaa lagu dilay inta u dhexaysa ceelbuux iyo badhan ee gobolka sanaag. diyaarad nooca aana duuliyaha lahayn ayaa duqayn ku dishay nabadoonkaas. nabadoon cumar cabdulaahi ibraahim wuxuu caan uu ka ahaa deegaanada maamulka waqooyi bari. lama yaqaano sababta loo beegsaday diyaaradaha aana duuliyaha lahayn, badanaa ma beegsadaan, waxayna ka soo baaraandegeen sida la sheegay oo dadka khubarada ee dhinaca amnigu ay sheegeen. diyaaradahaana duuliyaha lahayn waxaa adeegsata dowladda maraykanka, badanaa waxay howlgallo ay ka fuliyaan koonfurta soomaaliya sida labada shabeelle, labada jubba, baay iyo bakool. gobolladan kale ee gobollada dhexe la yidhaahdo hiiraan, galgadood iyo mudug, si la mid ah gobolladan kale ee aynu soo sheegnay ayay howlgallo joogta ay ka fuliyaan. waxaa badanaa ay beegsadaan kooxaha ka soo horjeeda dowladda federaalka sida shabaab iyo daacish. gobollada maamulka puntland sanadkiiba waxaa laga yaabaa 3 jeer iyo 2 jeer in howlgallo ay ka fuliyaan. markii puntland ay bilowday dagaalka adag ee kooxda daacish, duqaymo ayaa laga fuliyey buuraleyda silsiladda ah ee calmiskaad iyo caalmadow ee gobolka bari. laakiin weli ma dhicin nabadoon aan koox ka tirsanayn in diyaaradaha aana duuliyaha lahayn ay duqeeyaan. lama yaqaano raadka soo galay iyo waxa sababay in nabadoon cumar cabdulaahi ibraahim la duqeeyo oo gantaal lagu dhufto. 5 gantaal ayaa lagu riday, 4 ayaa hareer martay, kii 5aad ayaa ku dhacay sida la xaqiijiyey. wuu googo'ay, gaarigiisana waa uu gubtay gebi ahaanba. ilaa iyo hadda cidna ma sheegi karto sababta keentay duqayntaas ee lala beegsaday nabadoon cumar cabdulaahi ibraahim. ehelada nabadoonkan ayaa waxay tuhun xooggan ay ka muujinayaan maamulka puntland. dhinaca puntland way hadleen, waxay sheegeen in nabadoonka keligiis uu ahaa, gaarigana uu gacantiisu ku watay, ayna baari doonaan oo laamaha amniga puntland baaritaan ay ku samayn doonaan dilka nabadoonka ee diyaaradahana duuliyaha lahayn ee duqeeye. soomaaliya warka ugu weyn ee hadda yaalla ayaa wuxuu yahay dilka nabadoonkan ee deegaanada maamulka waqooyi bari lagu duqeeye. gobolka sanaag waxaa horta sideedaba ku muransan 3 dhinac. puntland oo gebi ahaanba sheegata gobolka sanaag in iyadu ay maamusho, somalilan oo iyana aaminsan in sanaag iyadu ay xaq u leedahay. maamulkii dhowaan lagu yaqleelay laasacaanooda gobolka sool iyana waxayba sheegtaan gobolka sanaag. dhinacyadaas oo dhan ayaa isku haysta gobolka sanaag. nabadoonkan dhowaan wuxuu dhaliil xooggan ugu jeediyey madaxweynaha cusub ee maamulka waqooyi bari firdhiye, oo uu u jeediyey canaana in waxyaabaha qaar uu ka tanaasulo. waa ka hor inta aan madaxweynaha loo dooranin oo madaxweynaha ku-meel gaarka uu ahaa firdhiye. markii nabadoonkan dhintay hadalkan uu jeedinayay, muran badan ayaa ka taagan dilkiisa. lama yaqaano waxa ku soo kordhi doono iyo dilka nabadoonkan, waana waxa soomaaliya ku cusub. nabadoon ilaa iyo hadda aanu dilkiisa meel saarnayn markii laga hadlayo diyaaradaha wax duqeeya. waxaad nagala socotaan hoyga banaadir raadiyaha iyo telefishinka nabad.